xafladan ayaa ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay taasoo ay ku soo bandhigayeen ururka khayriga ah ee Hillsborough waxyaabihii u qabsoomay sanadkii naga tagay 2019 iyo waxyaabaha ay hiigsanayaan sanadka cusub ee 2020 ugu horeynba waxaa hadalkayba furay gudoomiyaha ururka khayriga ee Hillsborough Mawlid Ibrahim Cumar kaasoo ka sheekeeyay ururkani marxaladihii kala duwan ee uu soo maray hadaladiisina waxaa ka mid ahaa oo lagu maarmaa waa gacantaada balse waxaad ogaataa hadii hadana aan la istamataabin waxay masuulta galayaan magacii marka sameeynay fikirkiina aan isugu nimin ilaahay uu noo hirgeliyay shay kasta oo ilaahay xaqiisa loogu dhawaanayna waxa ogaataan marnaba inaan iilanahayn marna inaan arintaas ka kala dhantaalmahayn talaabo kasta oo qaadno muddada inta leeg talaabo kasta oo qaadno ilaahay uu noo sahlay dhinaca doonto ba ahaatee hawshii sidii baan ku wadnay magacii marka sameeynay muddo 7 bilood ah ay ururka establishmentkiisa lagu qaatay 2008 sanadkii 2018 labadii 2018 ilaa 2019 ururka waxaan wadnay establishmentkiisa ama dhisitaankiisa iyo wax alla wixii turxaan kaga iman karo oo dhan ee urur lahaa ina meesha ka saarno oo ka dhigno urur suurta gali kara oo geeyga Soomaaliland u shaqeyn kara iyo ummadda Soomaaliyeed dhanka kale waxaa dhinaciisa hadalka qaatay maareeyaha guud ee TV-ga qaranka Maxamed Xasan Cali Waji waa laga barto markuu soo galo isaga dalab lama weydiiyo inuu ku salaamo Xuseen harakowgi Xuseen keenale harakowgi waa in la weydiinayo xudooniye ma waa harakowga maalmaha kamid isagoo subax markaa harakowgiisa yaraa ku sii socda ayaa midho sigaar u cabi jiray wadada wuxuu ka helay wuxuu laba xabo sigaar ka iibsay dukaan فك السجار كعباك لأن لبده حبة باكر لما تصيو لبده حبة قاوم باللودي شاب كينو وقول ولا صار كاسب بركلي هاي وحشري وكاجا ضارن دولار sidoo kale waxa madasha ka hadlay gudoomiyaha kaydka raashinka mudane Faysal Cali Sheekh iyo madaxa xiriirka jaamacadda Hargeysa Axmed Yuusuf Goolcade waxaana yiraahdeen badan oo igu horreysay ay sheegeen wax waa la bilaabay laakiin inta badan dhexday ka leexda waxa frontier-kii dhinac weyn ku fiicannaho dadkeenu kolka adeegto waa dad isku nool oo qoys kale uu ku dul nool yahay ama ku dibad jooga ha noqoto ama ku guda jooga ha noqoto ama qofka shaqeeya laga yaabo intaas oo qoys inay biilkiisa iyo noloshiisa runtii ay ku xidhan tahay marka dad ma nihin runtii u samaysan baynu nahay inaynu aad tashateen muxuu ahaa aad tidaahdeen aan samayno urur noocana sanadka dhan aad soo wadeen waa wax lagu maxaan ku farxaa waxa aan ku talagalayaa in sharcigii leedihiin in xafiiskii leedihiin markaan dhageystay maxaan ku raadayay khudbadihiinii wax weyn baa runtii ii kordhay waxa weeyaan wax kasta oo la bilaabayaa way adag yihiin haddaad ka bilowdo abuna aadam calayhi salaam markii ilaahay abuuray markii uu feedhiisa laga abuuray hooyadeen xaawa ka soo soco mar walba bilowgu adag yahay laakiin bilowga waa laga gudbaa bayn waxa hadalka soo gabagabeeyay barasare Cabdisamed Xasan Maxamed iyo waliba aqoon-yahan Sucaad Carmiye mas'uuliyiin iyo ururada inaynu ka qayb qaadano talada kale ee halka kan aan idinka jeedinaya qolada maamulka waxaan jeclaan lahaa maadaama sheegteen in gacanta ku haysaan 20 qoys ama 20 reer oo arinta si hiil qaran Hillsborough ay gacanta ku hayaan oo wax siiyaan oo ay kuna sii tada jiraan inay gacanta ku ay dadkoodii u daryeeleen inaguna aynu daryeeli karweyna meesha su'aasha meesha taala tahay wadanka ugu weyn ee Mareykanka la yiraahdo ee capitalistka ku dhaqma saboolka dadka ay ciidaas ka badan yihiin dhowr iyo 30 milyan bank Samatar Umar Ismaaciil wararka VOS News Somali magaalada Hargeysa
هذا كان حنبين